madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Mustafa Maxamed Umar iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle qaybteeda dhinaca Ethiopia. Maxamed Shaqale ayaa ka waramaya soo dhaweynta madaxweynaha iyo wixii halka uu kala kulmay. madaxweynaha deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle qaybta Ethiopia ee shaxda. soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha waxaa ka qayb galay isimo cuqaal odayaal ururada dhalinyarada iyo haweenka iyadoo markii dambe loo galbiyay hoolka shirka waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Garaad Cabdisaaq Garasoofe iyo cuqaal soo arkaan ilaa iyo meesha ugu dambaysa waxaan leenahay madaxweyne adiga wafdigaaga waa mahadsantihiin waa idin soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba iyo sida qof bilo aadan loo soo dhaweey sida ugu qiimaha badan ayaan idin soo dhaweynaynaa qalbi maaragtay idin raba ayaan idin ku soo dhaweynaynaa kalgacayl baan idin ku soo dhaweynaynaa dawladnimo jacayl iyo inaanu dawladdeeda rabno oo u heelanahay baan idin ku soo dhaweynaynaa inaan idin la shaqeynayno garabkiina taagannahay oo shacabkiina nahay ayaan idin ku soo dhaweynaynaa haddii aanu han weyn iyo hunguri weyn ku qabnay in badan sida roobka ku saadeelinay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noo ka keenay adiga oo golayaashaada la kaashanaya inaad noogu dhawaaqdid ugu yaraan hal gobol iyo 4 degmo si aanu u helo matalaad sax ah oo baahidayada ka tarjumaysa si aanu u helo mudane madaxweyne waad ogtahay oo dawlad deegaankeena Soomaalida la isma yiraahdo qolama tahay laakiin waxa la yiraahdaa gobolka ka timi waxaana ummadda halka fadhida marxaati ka tahay inay madaxweynahooda wixii ay rabeen oo qoraal ah ugu dhiibeen waxaanu jecel lahay in madaxweynuhu hadduu ay u suurto galayso uu skip reading ku sameeyo qodob kastoo halka ku qoran wuxuu laga sugayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa kale madaxweynaha oo markii dambe lagu soo dhaweeyay ayaa ka warbixiyay socdaalkiisa magaalada Buuhoodle iyo odayaashaba xogtan ayo waxa ugu siimeysa waa biyaha hadda waxa u sii daran waa biyaha iyo health center xagga caafimaadka marka in health center-ka hawshiisa dib loo eego biyahana la keeno waa ka shaqeyn doonaa baahiyaha aad beel ahaan u sheegateen deegaan aan ahayn in wax laga qabto waa la isku dayay dhanka matalaada dhammaan degmooyinka beeshu ay hoos tagto iyo gobolka Doolo iyo heer deegaan matalaad waa la bilaabay beesha waa la bilaabay intay doonaan la ekaato cid Soomaaliyeed oo maanta deegaanka joogto oo booqanay oo lahayn saamiga naga maqan ma jirto taana ogaataa muhiim laakiin waa la bilaabay mas'uuliyiin baa laga arrinaya sax ma aha halkan mas'uuliyiinta nala fadhiya qaarkood aad aragtaan wajiga ka muuqdaan laakiin naguma fil iyo wax la sii badiyo waa la oran karaa wax beelo idinku dhow iyo maamul gobol iyo xukuumad iyo ay idinka hortaagan yihiin runtii ma waa wax guud oo horumar la'aantii deegaanku ay keentay weeyaan meelaha qaarkood in saa loo fahmaa miima waayo saa hadaan loo fahmin waxa laga yaabaa in la isu arko in kaligiin ay hawshan ay ku tahay ma beelahan soo marnay iyo kuwa haddaan sii mari doono ilaa intaan laabanayeen qaloocan ka noqon doono danood sii mari doono aan dhexdii sii mari doono sariiq iyo agaas iyo diyaal leeyda intaas oo dhan baahiyo aad u badan